خلافك ودحيا labada mas-uul ee haddeer Puntland jooga waa khilaaf soo noqnoqday uuna horeeyo wala bilowday Puntland marka sideedaba khilaafka wala bilowday haddaad aragtid meel aan khilaaf ka bixina way caddahay hoggaankeeda xun capacity-ga mas-uuliyadeedna aan lahayn taas ba intaasaa ku filanba waayo haddaad aragtid meel had iyo jeer khilaaf iska qabsi maxaa haydeen wax soo noqnoqda waxyaabo hoose oo kor u soo baxaya aad aragtid meel caadaysataan bay ka soo baxbaxaan waxa hoggaankeeda xun sababta hoggaanka weey horena waan u sheegay anigu waan sheego waan caddeeyo waxaan ku yidhi Siciid ma habboona Puntland hoggaaminteeda kuma habboona wayna caddaatay oo tana daliilo ah annaga khilaafkaygii hore aad ogeyd wixii dhacay baad ogeyd sharcigii in lagu tuntay baad ogeyd waxaanu ku wada hadlaynay wixii dantii naga dhexaysay dalkii dadkaanu haynay iyo mas-uuliyaddii bay ahayd tan khilaafkan hadda dhaco labadooda ka dhexeeyaana kayga aniga wuu ka horreeyaba anaa dhex galay ee raggaan ku jiro waxa weeye waliba ragga anaa hoggaaminayay khilaafkaana waxaan isku daynay inaanu caburino inaanu soo bixin in Puntland gacmo geer jiro hoos baa loo dhaqaaye waxeeda ay hoos u dhamaysato ilaahayna uu nagu guuleeyay taa waxaan islahayn wax dambe soo bixi maayaan oo Siciid uu ka xishoonaya amba uu ka taxadiraya waayo mas-uulkii dalka isaga ahaa khilaafkana markaan taabto oo aan dhab u taabto waxa gardaran Siciid madaxweynaha gardaran wuxuu gardaran yahay qodob dastuur uu siinayo ama dastuurka wuxuu siinayo madaxweyne ku-xigeenka horta awalba meesha xukuma haysan ku-xigeen awalba meesha xukuma haysan ama madaxweynaha ama wasiiraha ahaade laakiin wixii yaraa ee dastuurku siiyeyna waxaad moodaa Siciid inuu bero dhigtay oo aan ogolayn waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa tashi waxa meesha ugu qoran tashigina uu diiday tashigu marka waa dastuuri khasab ah inuu la tashado laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato sharcigu wuu qoran yahay maaha wax jeebka Siciid ku sito maaha wax Axmed Kaash jeebka ku sito waa wax qoran waa kontraagii Puntland waa dastuurka Puntland way qoranta si fiican waxa uu qeexay qodobada 8aad iyo 9aad waxa weeye marka qodobada waxa uu qoran oo ugu muhiimsan madaxweyne ku-xigeenka waa la tashiga marka waa khasab inuu la tashado khasab weey dastuuri ah laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato laakiin waa dastuuri inuu la tashado tashigana meesha uu ka saaray waana arkaysay hadda xataa xishoodkii uu lumay iyagoo is hayo oo aan wada hadlin oo isu tegin warqadiisii uu ku magacaabay wasaaradda wuxuu ku soo qoray markaan kala tashay madaxweyne ku-xigeenka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusinayaan maroorsiga iyo xoogga la isticmaalayo iyo inaan waxba laga ogolayn maxay ahaydeen awoodda taalla meesha oo la wadaago ama Puntland la wada leeyahay in meesha laga saarayo wixiina uu rabo nin inuu isku ururiyo hal nin inuu isku ururiyo oo aanu cid kale wax uga ogolaan taasna dad laguma noqon karo bini'aadamku waxa weeye cadaalad buu u baahan yahay ma fahamtay Axmed marka wax ku gardaraanaya haddii uu yidhaahdo taladan dhiibay khasab weeye la qaataa wuu ku gardaraanaya dastuurku taamsi laakiin waa in wax laga qaataa hadday wanaagsan waa laga qaataa madaxweynuhuna kuma khasbana inuu qaato laakiin wuxuu ku khasban yahay inuu tashado wuxuu kale oo iyadana jirta waxyaabo badan baa Puntland ka dhacay runtii wax dowladnimada ku fiican ma wax qof mas-uuliyad siyaasadeed wuxuu ka garanayaa samayn karana ma waxaan ognahay in madaxweynuhu dalka hadduu ka baxo automatically dalka hadduu ka baxo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha saasaa dastuurka Puntland qoraya that means awoodii dalka iyo awoodii madaxweyne isaga isticmaalaya ilaa uu ka soo noqonayo talada markaa madaxweynaha yeelanaya hadduu maqan yahay ma aha inuu amar soo bixin karo hadduu dalka ka maqan yahay taladii madaxweyne ku-xigeenka lahaa isaga yeelanaya taluu soo bixin karaa laakiin go-aanka wax qaadanaya oo leh madaxweyne ku-xigeenka dalkana madaxweyne isaga ka ah ku sime markuu yahay intuu soo noqonayo waxa dhacday madaxweynuhu
وحال غير غصولا حتى العجا وقري أوير وحن قصة العجا إن الشيء وشيء وحن بناء رنتي وحلا الشيء يكون فعلا لكن وانتابنا يعني حنو عدينا يعني وحكرنا إن أنا مشاس أنا تشيلني وضرهان شو يأول له وذاقه يمسوري له وذريه إن أنا تشيلن بانو شيء واحد عليه مدحونه سوق مقارنة درك مدحونه كي هاي إنه ننحل بانو حق وله وصدح كونه ضرر وقري بنك أو قري صدح بيكون مركي للسينا مدحونه إنه يمي أو يلوانه سوء عليه العقدي إلهي بالد كل داريه إلهي بالد كل داريه من مسؤوليات بواحد ما الشرف با من المسؤول ضد الحكومة وحكوها ضبع واحد لغير خصودوية أنا مركب حناه سعيد عبد الله نن ميجا حريفك وها حريفك عدين ميجا ها وضيها با وسوق لي مقالة لو تنا مقالة بفهم وضيق مقالة يسوي وير عيبوا بيت لأنه كمان شيء سماع موت مركب قلعة واستوحي لادين ملف سدين مقالة الله حيلادين ملف سدين مقالانتي يميجي بكروناي الله يوم مقالة ما مصبح قدعي سعيد عبد الله وحلاها سعيد عبد الله دني معلن كي ما مدي سكول كروناي الله يوم مدحوين ماذا ما مصبح قدعي بالله وأي وحياها هاسي وإله بان كل داري موح من سورة كسورة بكلام وحن آمسنا هاي مركز سعيد سياسي بصارت أنا سياسي هاي دولة النمضة أنا قوانين وأنا تكلف فيسا حدود دولة النمضة وحكي يقام وهذا قلنا رجي وويناي بطفان صومري السياسيين تاها الدولة ده رد الشد القص سكري الحراك كسر قبطي مركز الله إلى دستور عبد الله يسكت صدره عدك كحشي عبد الرحمن فرور كحشي مركز الله دستور عبد الولي حتى كحشي كمدعم دستور مركز الله إلى اسمه سولون منك وين دستور كمركز الله إلى ويستاجر وهي الدولة النمذجة يقرنيه مسؤوليات ده يقرنيه مدحني ماذا يفهميه لكن ده واحد يري سيدا أنا مذوق هذا قفك من هذا كاي ده واحد نقول جاي بوكيه هذا المرك قفك وحنا قنطرنا عنه وقرين ده عيب وقد عيا سعيد عبد الله الدني مرك خلاف كبت لنا عنه ساس عنه مرك وحنا لا هي عنه وقتلنا يا بتلا لوتر هاللوتر بتلا شعب كيدل كان هاللوتر sharcigana hal la ilaaliyo haddii aad si kale u heshin wadaan waa qabaa dhexgalkan iyo oday iyo habar iyo isim iyo riwaayadda meesha inaanay ku jirin arrintu geed maaha waa arrin sharci waan qabaa anigu dastuurka in lagu kala baxo laakiin waxaa isweydiin leh dastuurka yaa ku kala saaraya dadka maxkamaddii dastuuriga ahayd waa la diiday in la sameeyo waxaa loo diidayna waxyaabahaas marorsiga bay ahaayeen maxkamadda sarena arrintaa anugu ma aaminsaneyd inay geli karto حتى هذي كشون نبى مقعبة وطريبة ماها حتى محكمة حرمة مركي أنا وحنا قلنا يا دستور كان لو كلام بحق لكن هالنقدين ضدك دستور كا يعني أنت هذا الشيء دستور كان هالنقدين ضدك وحكوا كلا صار يا ضد الله يرسى أما ضدك وحنا أقوم تقولها هالنقدين بان ليه هاي شرعنا لو كلام بحق نحن كناش نوع عليها هاي الله يبارك وسعيدة تكون تاعي مرة البعضين لماذا هكتجي حقها كما تيكودود حق بعض ولا هاي ويحسي الحق ولا هنا هذا كحد كدبن انت سيان كذا حياة أو ترى إذا